kani oo soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo ahaa mid lagu lafagurayay tacadiyada ku dhaca bulshada qaybaheeda kala duwan sida caruurta, haweenka iyo dadka nugul ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo yareyn lahaa kiisaska bulshada ka dhaca ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha dawladda, isduuyaasha wasaaradaha ee gobolka, hay'adaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale hay'adaha sharciga ah ee gobolka, madaxda heer gobol iyo heer degmo. ujeedada kulankeenu waa kulan is-xogwaraysiya oo lagaga hadlayo arrimaha bulshada dhinacyadooda kala duwan. section kasta wuu fadhiyaa, hadday bilays tahay, hadday xeer ilaalin tahay, haddii ay caafimaadkii tahay, haddii ay cadaaladii tahay, komishankii xuquuqul insaanka, hay'adihii kala duwanaa ee ka shaqeynayay arrimaha bini'aadamka, qareennadii. markaa waa dareemi karaysaa qolayska uu leeyahay kulankeenani. kolley waanaynu wada shaqeynaa, laakiin bal waxaynu doonaynaa kulankeenna saaka inaynu isku xogwaraysanno oo wada shaqaynteenna aynu xoojinno. waxaynu isugu nimi sidii looga wada hadli lahaa ee loo xoojin lahaa arrimaha la xidhiidha kufsiga ama arrimaha bulshada wixii hoos yimaada sida tacadiyada kufsiga iyo wixii kale la mid ah. kolley annaga bulisaan waa shaqadayadii. waxaan filayaa haddii aan waxa weeye la iskaashan oo waxa weeye aan la wada shaqayn wax ma wada hagaagayaan. halkan waxaan isugu nimi shir laba cisho aan filayay inuu qaadanayo oo aynu kaga hadlayno arrimaha kala duwan ee ka dhaca qoysaskeena dhexdiisa, hadday yihiin haweenka, caruurta iyo hablaha iyo wiilashaba laftooda. arrimaha waxaa ka shaqeeya wasaaradda arrimaha bulshada, caafimaadka, booliska, wasaaradda cadaaladda, xuquuqul insaanka, dawladda hoose iyo hay'adaha maxalliga ee ka caawiya in taageerada dadka ay dhibaatooyinku soo gaadhaan. xogaha soo baxaya kala duwan, dadka kala duwan ee ka shaqeeya waxay sheegayaan inay tiradaasu badan tahay. tiradaasu inay badan tahay marka institution keliya uu 737 case uu sheego ee uu yidhaahdo way dhaceen oo caruur yihiin qaar oo 14 caruura iyo kufsi 230 162 ayagu ah dad la dhibaateeyey iyo intaasoo dhan waxay sheegaysaa in wax ka qaldan yihiin hanaanka dhismaha qoyskeena iyo bulshada. halkan waxaa laga hadlayaa dee kufsiga iyo tacaddiga baa lagaga hadlaya in wax laga qabtana waa la doonay. kulli qaybtayada tani oo dee ay wasaaradda cadaaladdu ka mid tahay ama garsoor ha ahaato ama xeer ha ahaato ama booliis ha ahaadeen waxaa nagu waajiba inaanu si wanaagsan oo cadaaladi ku dhisan tahay aanu dembiyada reebkaa dembi oo dhan baa dee annaga waa noo siman yihin ama reeb ha ahaado ama dil ha ahaado ama dhaawac ha ahaado kolle mid walba cadaalad buu kaa doonay. laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay waa xasaasi, baadhistiisa xasaasiya oo caddaymihiisa xasaasiya. wuxuu ka dhexeeyaa booliiskii oo baadhaya, qofkii dhibanaada oo raba war caddayn keeno, dadkii oo raba inay markhaatiyaasha loo baahan yahay aanay ka gabannin waxay arkaan ka markhaati bixiyaan, dhakhtarkii oo raba inuu waajibkiisa qaato oo doorku ku leeyahay oo ka ugu adag. annagana waxaa laga rabaa inaanu anugu xeelal ahaan inaanu ku ogno ciqaabta uu mudan yahay, dabeedna maxkamadda kaga caddayno hadday wax naga dhiman yihiin caddaymihii aanu inantaa dhibaatada loo geystay aanu ku caddayn lahayn oo hay-adaha wada shaqada la isugu yeedhay mid ka midii ay caqabad ku noqoto kiisku caddaan maayo. hadda kiis baa maandhood laga burburiyey, sababta laga burburiyana wax iska wasaaradda caafimaadka. sababta laga burburiyey kiiska ee garsooruhu u jebiyey wuxuu yidhi dhakhtarku ma soo caddaynin inantaa in loo galmoodiyo inaan loo galmo. waa jebiyey. warqaddii markaad eegtana waxaa ku qoran xariijamaa ku qoran, nabar baa ku yaalla, way furan tahay, maxaan ku dhahday dhigroor baa ku yaalla. yaa ku sameeyey? meesha cadaalada waa adagta wey. aan run sheego hadduu dhakhtarku tiisa ka leexdo
inantu markay tidhaahdo waa lay kufsaday hooyo hooyadeed way eegi kartaa cawradeeda laakiin ee dhakhtar ma anigu ma eegi karo inta gudaheeda taliyahanna ma eegi karo kanna ma eegi karo barasaabna ma eegi karo waa dhakhtar eega sharcigu waxa markii dhakhtar loo geeyaa markiiba dhakhtarku waa inta eega cawradeeda waa inuu ma la fuulay isagoo ma aha hebel baa kufsaday ma aha hebel baa kufsaday ma aha waxa weeyaan inantaa galma ila waxay waa lay galmooday inantaa galma ma ku dhacday mise kuma dhicin ninka loo garanayaa ma jiro aan dhakhtarka ahayn haddii dhakhtarku uu ka leexdo cadaaladii uu ka leexdo oo uu soo qorqoro xariijimo casaan way furan tahay dhifroor baan ku arkay nabar baa kaga yaala oo aan odhanin galmaa ku dhacday waxa muu sheegin inta kale waxa weeyaan intaas soo dhalay waxa weeye waa fiskali dudusha nabar ka arkay hadduu xagatiba ku arkay hadduu tin ka soo qaaday hadduu shahawo ka soo qaaday laakiin waa inuu sheegaa ma dhacay betrish galma dhacay soo haddaanu taa sheegin cadaaladii intiisii wuu lumiyey dhibaatada burca ka tagan waa taa imika hadda aanay maanta idin sheegay intaanu soo timiyo dhibaatada burca ka tagan waa taa wey takiisaska imika kufsiga burburinaysaana waa taa wax jiri jiray ma ahaane dhawaan baa la keenay dhawaan baa la keenay uu fadhiyaa suduwihi uu fadhiyaa agaasima guudo waan kala hadlo waxaan ku iri soo qor warqad bay booliisku ku soo qoray wuxuu ku soo qoray waxaanu kaa codsanaa caddaysay inantaa in loo galmooday waxaa qoran jada caddaynta xaashida kufsiga inantaa in loo galmooday iyo in kale labadaa mid soo qor uu diiday inuu qoro wuxuu qori maayo xariijibaan qoray wax jiri jirayna maaha wax dhawaan la keenay wey ninkaygaa 75 shaqada bilaabay dhakhtaradu kuma dhici jirin dawladdii tii hore raystana waa ka raggii soo shaqeeyay baan la shaqeeyay tii afweynana waa ta wax bartay dhakhtar kuma dhici kari jirin inuu marka inanta loo keeno ee uu eego inuu yiraahdo xariijibaan ku arkay markuu ka hadlo wuxuu ku arkay oo dhan ayuu wuxuu soo qorayaa waxay qori jireen dhakhtaradii hore waxay qori jireen ama kuwa imika ma joogay dee aan ka gabanin waxay qoraan hataa inanta waxa loo isticmaalay hadday qodbanin ma bir baa loo isticmaalay mise xubinta ragga ilaahay halkaas u gaarsiin jiray horta caqabadda u sarraysa haddaa tacaddi lagaga hadlayo mushkiladaasaa taagan ilaahay soo waafajiyay nabadgelyada iyo caafimaadka inaan kulankan isugu nimaadno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo runtii kulankan muhiimka ah waqtigiisana ku soo beegmay inoo soo agaasimay kulankani sida loo inoo sheegay waa kulan runtii u baahan in maskax badan iyo dadaal badan iyo ku dhiirasho badan intaba la geliyo maadaama ay tahay tacaddi dhacay waana mas-uuliyad ina wada saaran qofka meel kasta uu joogo haddii tacaddi dhaco in qofkaasi cadaalad helo cadaaladdana waddooyin badan baa loo maraaye meel kasta ay dowrkeeda iyadu ay qaadato sidaa darteed waxaan u baahannahay inaynu ka faa'iidaysanno kulankan maalinta soconaya ee runtii wax ku oolka ah